hargeysa garowe muqdisho baydhabo bar walba waa laga soo heesay jigjiga ma laga heesay maya Djibouti maya laakiin Djibouti heeso horaa laga soo qaatay kuwaas booska u buuxiyay jigjigana kuwa horaa laga soo qaatay iyagana kuwaas u buuxiyay booska labadaas Soomaaliyada istaageen Soomaalida garan kuwa laakiin googradaha isugu dhacay waa xamar iyo hargeysa iyo garowe intii la rabayna intan ay ahayd wuxuuba mashruuc shisheeyuu ahaa shacabkii xariirta ahaa ee reer waqooyi shacabkii Soomaalinimada iyo wadaniyada hormuudka u ahaa yaa maanta axmaare iyo oromo difaacaya reer waqooyiguna waa dad u nugul maxaan ku yiraahdaa caadifada jaamaco soo gara luqado hadda waxay garan laayeen heesii raxan weynta iyo kuwii baajuunta iyo kuwii banaadiriga wax u fasira ilaa afar heesood baad fasiraad la raadinaya adiga u fasir ma aqaan anigu iyaga kala aruudi kuwaas isku xaafadnay Soomaa fi hargeysa maxaarkaas xurmada igula nool baan wax walba ka doorbidaya ahay iyo tii xamar beecha ku taalada ahay maxaarada beecha ku taalada ahay beecha ay labadaas de Soomaali kuma wada hadlaynin midna amxaara lagu jeclaa midna amxaaradii baa lagu garbaashay yaa isu qaadaya amxaaradu meesha ma joogtay kuwa ay amxaara ka dhaxadlayso iyo kuwa quman ma qumana wax quman meesha ma joogaan dariiqii iyo albaabadii daba dhilifkaad marka ayadoon laga casuumin baa ayr iska xaadirisay adigu okay muhiimadu marka waxay tahay waxa dhacay gafkii ugu weynaa taariikhda Soomaalida waxa dhacay akhlaaq xumadii iyo dhaqan xumadii iyo diin xumadii ugu baaxad weyneed ee bulshada Soomaaliyeed soo marta in wax walba lagu wada hadlo oo haddana idaacadihii yaani asalka ahaa ee dadkani ay lahaayeen ayaa wixii baahinayay idaacaduhu waa fanaaniintii aniga muusan idasabkan tumaynaa heestaadu xagee la jirtaa heestaydu waxay soo bixi doontaa bisha dambe insha Allah taala xagee u dhacdo gariirka ka dhaca iyo waxa yimaada cid qaadaba in la waayan ka yaabo tii oromada hargeysa laga qaaday ma ka cuslaan doontaa tii islaamtu ay wadayba islaam oromo ah hadii heestan ku darsanaya mid oromo oo la wareysanayo waa jirta oo telefmeel baan ku arkayay iyaduna le hees baan soo wadaa antaanay tiraatu dhufta نعمان أنا كنت شعر ده هس معان بقاعدة سوي ما تبلو ما بعانين حمر هدات عايشة هاي حل كوها بون بالواقع هاي صح شنطة الصومالي وضرب بهاس ده هاي تحل كوها بون وهرجيس عدادي يعني وحن أردن وحوي هذا أحمر عيدو ماذا عين أحمر واحد هذا ورموح كشيكت ماذا كشيك هرجيس ولا كشيكت إننا نسوي جوابنا عن حالة إن قد حشقيسن كل قرتوي في عنده لكن واحد الله يسكو هي مركي ميزان كلا سعره مركا دعوات ما دعوتني قبلها وين أرموها هرجيسة حقوق ذي هذين يمان دويت أو قريانا لقى بحي لها مركا تاس وفيرسته مركا هيرو قويمات ماشي السعودان فيرسه بالميزان صار عدالة يعني شعبك الصوماليين اللي قاضي شعبك الصوماليين إما أنت على ود يفول حمرة أنت اللي إجلك كلا جارسية وحي هالكمال أفويود إحمركي برشقها يا هذا ماشى اللي جساره تاسان لا إسكت بقبت بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعانو ونكسل إذا لهانتين بداوض يا الكسر هذا برنامج كنين نبكى هذا أو مركنا إنه كوي يجي دونه تضبط يدي الله صار ضعفي وحى برها برشقة الصومالي ده aad looga hadal hayaa heesan la isku karbaashayo oo Soomaalida lagu kala geeyay hadaba waxaynu eegi doonaa bal heesahaasi oo aynu dhowr iyo 10 daqiiqo soo aadan ku falanqeyn doono barnaamijkeenan waxa dhinacayga fadhiya jaamac gal jaamac soo dhow ma sha Allah waxa la heesaa yaa sidii gantaalada ooda la iskaga qaad adoo wax ma ku darsato anigu hal nuclear yan bishi dambe diyaarinaya insha Allah taala way bal heesahaasi iyo nuxurkooda iyo ujeedada iyo danaha laga leeyahay soo dhow بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا جودهم بمدة الصوماليين ميل كستو يجوان بحلا السلام الله عليكم إن هستي أهيد والبا أحمارة ما المادير برنامج كوي هرجيس لقى قضية ما هستي وحياة هستي يبقى فرتي أمحار احترام يقولون والله أحمار بقى يحيى والبا احترام يقولون أنت كلا ضدك كلا يحيى يا هرتا
heestaasi way qaraxday هاي Soomaaliga أبوانك قاعد هرت مارت maya سو هذا مارت ها isaga oo sheegayo oo le walba wax fasirahaya ها heesta yar fasirahaya Soomaaliya ها oo ku yar si dhiirana dhaaha baa leeyahay dhaaha ودرين كان دريمي يبي ha dhima laha waa dareenka qofku waa dareemi karaa هاي dareen laakiin hadda xanuunsan buu dadkii ku sii dhexdaayay afaf ayna gareenin baa loogu heesay marka iyagiina أو محيا farxan weyn baa loogu heesay af Suudaanis hatta Portuguese baa loogu heesaya هاي و هل banaadirigu soo reer Portuguese ma qaarkood هاي iyaguna hadda heesay diyaarinayaan afkooda واي qolo waliba afkeeda waa heesaysaa qolada reer Hargeysa luqad kale ma yaqaanaan xawarna luqado badan baa laga yaqaanaa marka halkii hees shan lix luqadood kala duwan يا halkii hees dhashay yaa halkii hees yaa lagu soo qaadaya هاي may baa lagu qaaday هاي may iyo maxaa tiri iyo xaa tiri saddexda luqadood way Soomaalidu soo moog هاي حاطردنا ما de maxaa tiri iyo may tiri Soomaa may arti iyo maxaa tiri ها de xaa tirina way ku jirtaa iyana هاي iyagu waa maxaa tiri way واي iyagu soo Hargeysa maxaa tiri waa laga soo heesay ها maxaa tiridii waa loogu heesay waa loogu jawaabay Hey. xaa tirina waa loogu daray Hey. mayna waa loogu daray هاي maxaan ku yiraahdaa afaf kale oo quuqa ah oo khatartoodu ayna fududayna oo baraawa laga qaar baa lagu diyaarinaya marka kuwa lagu diyaarinaya xabadada nuclear ka ayna waa baajuuntii joogtay Kismaayo iyo maxaan ku yiraahdaa ilaa iyo Fuuma iyo Raaskambooni iyaguna waa hadda waa mashquulsan yihiin waxa weeye mashruuc baa la furay هاي mashruucani wuxuu noqday marka yaa wax sheegi kara yaa caytami kara واي yaa wax uun dhihi kara واي qof waliba wuxuu doono ku hadlay واي waa la sii baalbaaliyey Waay. balaayadii baa la sii ballaadhiyey Waay. waa la baahiyey maraxoor bay gaadhay iyo wax walba in la iskula hadlo واي tan marka waxay ku tusinaysaa dadka Soomaalida ah سفيان sida ayna u ahayn dad bisil ama xataa dad u diyaarsanba bisayl iyo in ay fahmi karaan kooxaha danleyda ah ee ku dhex jira واي waa dad saacadii la doono kaarkii la doono la marsan karo intii la rabana la gaarsiin karo adu bangiga markaad kaar wadato adiga waxa doonta kala baxaya Soomaa waxa rabtaa waa ku shubanaysaa Soomaa waa goorta doonto iyo goobta doonto iyo goortay ku gaay xilliga ku gaadhab waxa adaas yaani dadka dareenkoodii iyo dadnimadoodii iyo jiritaankoodii ayaa kooxo slaves u ah kuwa kale gacanta ku dhigeen كو Soomaali islaamnimadii baa laga tagay Ay. Soomaalinimadii baa laga tagay Ay. wax walba oo la isku ahaa yaa la iskala tagay Ay. maanta waxay gaadhay marka inta kuwii dhihi jiray annagu shacabka Soomaaliyeed baan dhagahooda la leenahay inay iyaga maanta iscaayaan oo shacabkii Soomaaliyeed caayaan واي oo ayna jirin haba yaraatee wax ay ka fakarayaan alla ilaahay hadii ka tagay hal wiil oo ka tirsanaa kooxi dhaaha maxaa la dhahaa miyaa la dhahaa ninka dhaaha كي هسه kii heesta lahaa kooxdiisa ka tirsanaa dayax baan baa leeyahay Soomaa wiil ka tirsanaa baa leeyahay kooxda uu ka baxay اي Hargeysa Garowe Muqdisho Baydhabo bar walba waa laga soo heesay تشيك مرة maya جيبوتي Djibouti maya laakiin Djibouti heeso hore laga soo qaatay kuwaas booska u buuxiyay اي jigjigana kuwa hore laga soo qaatay iyagana kuwaas u buuxiyay booska اي labadaas Soomaalina bay istaageen اي Soomaalida garab kuwa laakiin googradaha isugu dhacay waa xamar iyo Hargeysa يقرب iyo Garowe intii la rabayna intan ay ahaydba wuxuuba mashruuc shisheeyuu ahaa aqligii marka dadka Soomaaliyeed sida loogu ciyaarhayo marka aragto iyo maanta ayaa soo jawaabay markaas commentiyada la isku eriyeenaya la isku bursanaya la isku baacsanaya la isku maartay wada caayaya markaas meel la isku wada hooyaya markaas si gunnimo ah wax la isaga sheegaya marka waxaad ka quusanaysaa jiritaanka Soomaalinimada ayaa totally ka quusanaysaa دنت لهانا waxa muhiimadu intaas baba hadda koox uqdaraysan ciil qabayaal ah oo Hargeysa jooga oo maamul sheeganaya oo xumaan mooyaane weligood aan wanaag samaynin taariikh wanaagsanna aan lahayn horeyna aan u soo yeelan maantana noqday jawaasiis shisheeye kalkaara ayaa ku guurtay Soomaali oo dhan
tani waxay muujinaysaa heerka yani dadka Soomaalinimadu ay ka gaarsiintay ama dadka Soomaalidu waxay yihiin war qofka xun Soomaali iska qaban jiray ma nin ayla taagan hadaad adigiina caydii ku garab istaagtay war oo indhaha un taagto oo maanta dhan u dhahdo iska celi warinkan cayda uu soo shaqatay wayna fahmi kartaa jawaasiista iyo dadka maaragtay dadkooda iyo dalkooda loo isticmaalo dad rajale ma aha waxay doonayaan dadka inay waalaan oo iyaga oo kala la wada noqdo oo dadku uu noqdo mid iyaga ka xidhan iyo mid ay cadow ku tilmaamaan yani mid iyaga ku xidhan oo iyaga u ah qabaan iyo derbi ay isaga dhigaan wax walba oo halis ah oo ay tola ay reer hebelahay ay maaragtay kula meeraystaan iyo mid ka ay ku difaacayaan oo ay cadow ugu sheegaan way ummadii Soomaaliyeed ee sharafka iyo qiyamka iyo karaamada lahayd waxay fahmi waayeen war kooxdan waxay yihiin waa loo ogyahay way yaan raadkooda laga daba qaadan hadiiba shib la isaga dheelaha heesta aan laga jawaabin maanta ta joogtay meel joogtay war qof yani markaad fiiriso wad yaabaysaa dad baaba sugayaba hadda yaa soo jawaabaya qaar baa waxay soo qorayaan jawaabta sug moogta soo dhacaysa waxaad arkaysaa 10,000 qof oo comment u galaysta oo le goorma soo dhacaysa oo la sugi laayay waa maxay waa ay adigii oo iscaayo waa ana adigii ay isla fadhiisato oo haddana caydaadii ay kula qurux badnaato oo adigii aad u aragto yani inaad iscaydo inay tahay wax weyn oo balaayo ka dhacday waa masiibo adduun waa masiibo adduun jaamac heesaha anu kulay ma wada dhageysanin laakiin labada ugu saameynta badnaa labaatan ka saamay badan baxtay gadaasha anu labadan ogaa yaa qaba inaan dul istaagno midaan qaaday mid aragtay taad soo wadiyo taad qaaday waa inoo sheegi tii Hargeysa maxaarkaas xurmada igula nool baan wax walba ka doorbidayaa ahay iyo tii xamar beecha ku taalada ahay maxaarada beecha ku taalada ahay beecha ay labadaaso de Soomaali kuma wada hadlaynin midna amxaara lagu jeclaa midna amxaaradii baa lagu garbaashay yaa isu qaadaya amxaaradu meesha ma joogtay kuwa ay amxaara ka dhaxadlayso iyo kuwa quman ma qumana wax quman meesha ma joogaan qofka qumanay fiiri heesu hadii labada lagu deyn lahaa waxbay ahaan lahayd anigu ma qabo mana aaminsani in yani hees la isugu jawaabo marxaladeed iyo xilligeed lama joogo ragga abwaaniinta ee wax ismoodayaahi siyaabo kale oo ku laacdami karaan baa jira laakiin bulshadii lagu si dhexdaayo durbaano colaadeed iyo dhiilo iyo dhibaato waxa weeyaan waa wixii ay doonayeen daba dhilifyadu dariiqii iyo albaabadii daba dhilifkaad marka ayadoon laga casuumin baa ayr iska xaadirisay adigu okay muhiimadu marka waxay tahay waxa dhacay gabkii ugu weynaa taariikhda Soomaalida waxa dhacay akhlaaq xumadii iyo dhaqan xumadii iyo diin xumadii ugu baaxad weyneed ee bulshada Soomaaliyeed soo marta in wax walba lagu wada hadlo oo haddana idaacadihii yani asalka ahaa ee dadkani ay lahaayeen ayaa wixii baahinayay idaacaduhu waa fanaaniintu maxay ku doodi jireen anigu yani dadka Soomaaliyeed ee dhageysta dhex baan u ahay siyaasad ma galo maanta reer bay isu caayayaan maxaan ku dhahay jifa isu caayayaan maanta qoys bay isu caayayaan aniga muusan idin sacabkan tumaynaa heestaadu xagee la jirtaa heestaydu waxay soo bixi doontaa bisha dambe insha Allah taala xagee u dhici doontaa guriga ka dhaca iyo waxa yimaada cid qaadaba in la waayan ka yaabo tii oromada ee Hargeysa laga qaaday ma ka cuslaan doontaa tii islaamtu ay wadayba islaan oromo ah hadii heestan ku darsanaya mid oromo oo la wareysanayo waa jirta oo telefmeel baan ku arkayay iyaduna le hees baan soo wadaa antaanay tiraatru dhufta oo wax u maartay ajaa'ib ah يا حكوا قيروا وان دعا كو وي فصشي ميا با علنك Soomaaliland weelada hada cirka hayo ada dhulka naga haye marnaba yaanay soo dhicin subhanallah waxa soo dambi heesma waxa soo dambi waxay dooni baa noqoto waa balaayada maanta ummadii Soomaaliyeed naga ormaha yaa wax u sheegay wacdiyahay oo afkoodi ku wacdiyahay
oo inoo heesay ma oo raba inay dareenkeena inala maaragtay to wada dareenkooda inay inala sheergareeyaan oo aan sii baahino oo aan gudbino oo maxaan ku yahay inagina aan sii kala fogaano ayaguna halka ay chance ka helaan sharma boy ma taqaana mala oo heesay isagan hey hagu jooga waa jimaanan Mareykanka jooga war cid aan heesin male cid aan heesin waxa heesay ninkii dhihi jiray waxaan ku yahay kii reeboora ma aha muxuu ah nimcaan la نعمان أنا كنت شاعر ده اسمه عم بقاعد يسوي ما طيب لو ما باهنين حمر هداد تعيشها هاي حل كوها بون بالله قاعدة هاي صح شنت الصومالي وضرب بهاستان ده هاي ها حل كوها بون وهرجيس عدادي يعني وحن أردن وحوي هذا أحمر عيدو ماذا عين أحمر واحد هذا ورموه كشيكت ماذا كشيك هرجيس ولا كشيكت qof kasta oo Itoobiya wax ka sheegay Hargeysa Puntland Hargeysa iyada dabada ku wada hada waa inaad fahmi kartaa walaalkaagan waxa aad isku diidaysaan soo Hargeysa wata Soomaa waxaan jeedaa Itoobiya wata Soomaa maanta hadii amaanta Itoobiya ay ku heli karto walaalkeen dareenkiisa wanaagsan waa inaynu soo jiidanaa si aynu uga reebno inta liidata shacabkii xariirta ahaa ee reer waqooyi shacabkii Soomaalinimada iyo wadaniyada hormuudka u ahaa يا مانت أحمر يورم الدفاعية ولا جارسية هيد كجاري ما مقاش هبل رجوع يجونا وضد أنه المحن كل هذا عاد فضة تمام سواء جرا لقاء كتر لقاء هذا واحد جرا لأينا يصير عوينته يكوي باجونته يكوي بنادرية وأفسره إلى أفر هي صوت بعض فسرات الرياضية هذا هو فسر يا ما قانا روبر يا كلام أرد كويس أنا صحافتنا يسمع سؤال شو ده بيثار وينك ويدي إن ليس جوابين أو هسه عن وجود جالجين أو مدة سومالية عن أنت كيو حقد الوجود جديدين ويقرح بدنا لهاي ما حقد كم قم باجي الصومالي ده أنت دمان يا هراي وحوم بعد دمانه يا وكوا علوش وجري كوا لفت الكود بتبادل بهاي ها أو ده واحد يدقيسان دونا أوكي marka aynu miisaanka saaro waxa la isku hayo inaynan isu jawaabin ama xaal inaga dhax shaqaysanin kula gartay way fiicanta laakiin waxa la isku hayo markii miisaanka la saaro marka aad daawato ma daawatay gabdhaha ween Oromo aho Hargeysa xuquuqdooda raadinaya mandawito oo guriyana laga bixiyay lahaa marka aad taas u fiirsato marka heer waqooyi maanta meesha u socdaan fiiriso بالميزان صار عدالة يعني ميزان عدالة مركز الصار ضد كان فرصة ذهبية هرتا أكست أو يسومرت أو يسكلوا مسوا دقون سوماليا ما أنت chance باللجوء هيستا فرصة ذهبية اللجوء هيستا فرصة دي اللجوء هيستا هذانا أيها سئس كذا يسولوا بقول شبارتي سوماليا قرن تأرمو يعدوا اللي بهرت فرصة ده سيكفي هذه سنة عدالة دن يمرك على ميزان عدالة هلا صاروا Soomaali maxaa ku kala maqan oo isku haysaa waan go'aynaa iyo go'i maysaan waa runtii waqooyi ma go'i karaan ana lehba looma baahna inay go'aan xagee aadayaan labadii gobol ee israacday ee waqooyi iyo koonfur hadday kala go'ayaan xilligan ma aha xilligeedii xilli la miir qabo la caafimaad qabo miiska inta la isugu yimaado si cad loo dooday wixii la kala goosan karo la kala goostay ayaa la kala maartay baxaya laakiin caadifad iyo cayban ku go'ayaa iyo ku go'imaysid ka hadda go'itaanka doonaya iyo ka difaacaya aniga midkoodna hadda sax igu lama muuqdo sababta adduunka horta sharci baa jira Soomaaliya waa Soomaaliya Hargeysa waa caasimadda labaad dalka Soomaaliya inta cid dhaafin karta ma jirto dad maanta oo dhan ku aadinta jamhuuriyadda iyo hadaad ku aadinta maxaan ku yiraahdaa waa gobol waxa weeyaan waxay tahay Hargeysa ma dhaafayso inay tahay caasimadii labaad ee dawladda federaalka ee dalka Soomaaliya caasimadii labaad ee jamhuuriyadda Soomaaliya aqli baa loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed anu lama hadlayo siyaasiyiintan waxa weeye waa isku mid weey qori iyo qiiqi wala isla tuuraa Xasan iyo Muuse iyo waa isku mid wax farqi u dhaxeeya ma jiro waliba danahiisa gaar ku weeriyay middan Soomaaliyeed ka shaqeynaya ama dan Soomaaliland ka shaqeynaya ma jiro shacabka Soomaaliyeed ee la gaaday shacabka Soomaaliyeed ee maanta cadaawadda iyo foolxumada inta la igla kala gaarsiiyay
wixii halkii meel u fooyoobeed ee isdhexmarkii bulsho ahaa yaa hadda meesha laga saaray taasaan leeyahay iska daba qabta dad isu heesay abwaaniinta iyo fanaaniinta waad fashilanteen baan leeyahay iyagana way fashilmeen had cad bay fashilmeen ceebtoodii iyo xumaantoodii iyo qurunkoodii baa loo tegey dad wada cuqdadaysan oo wada dhaansan bay ahaayeen oo ilaah maryaa furka kaa siiba taagan furkiina dhaaha ka siibay samuuso ah ninkii sameeyay horta heesta ما ninka abwaanku wuxuu yidhi cidina ma sameeynin anaa sameeyay dareenkaygu waa ma saa dhehbeen waa dareenka muuse hay wuxuu ka hadlayay dareenka muuse ahaa isaga ma ahayn waa laga dhaxlahay way koowdhe dhaahna waxaan leenahay adeer mikrafoon ha noqonin codkaaga ku hadal annaga maxaan ku ahaa muuse ku soo dhex galo ku soo iyo sanoo soo ka dhex marin soo agar kaasi waa maxaan ku ahaa waa falaago waana la soo qabanayaa ka ag fogow muhiimadu waa intaa way jamac waa soo gabagabeynayna kuwa heer konfureedka iyo waxaan leeyahay konfureedku ku jira waxa heesaha dhan baa qaaday isaga qaaday waxaan lacag baa lagu bixinayaa qaar lagu bixinayaa fam baa lagu bixinayaa meesha dadkii xasan iyo muuse kala raaceen waa laba munaafaqna khayr lagama sugayo wakaa xasan iyo muuse ninkii khayr ka suga isagaas yaqaana dadka walaalaha ah war wallaahi inaan muusena meel idin geynin xasanna meel idin geynin soomaaliyana way jiraysaa way tabar daran tahay way liidataa waa maxaa dhafoor xumo looma dhintaa la yidhi soo maaha soomaaliya dhafoor xumo u dhiman mayso nin kastoo isku daya inuu kala qoqobo nin kastoo isku daya inuu kala kaxeeyo 100 dowladood hadday aqoonsato Somaliland 100 hadday aqoonsato oo ayda iyo waxa ay ku aqoonsato Soomaaliyana ayna raalli ka ahayn dadka Soomaaliyeed oo raalli ka ahayn ma hirgelayso waxaan leenahay marka waa la idinka faa'iideystay say tahay baa la idin soo dhaxmaray say tahay baa la isula kiin dhacay dib inta idin kala gaaray iyo cay iyo aflagaadaha idin ku filaato bal isku daya wax yar dareenkiini Soomaalinimo inaad in yar dib u soo celisaan dib u soo celisaan oo ugu yaraan aad cayda iyo aflagaadaha iska diisa war Hargeysa waa xamarna waa Hargeysa قبيلة وقروا مظاهرات سميار هذا عيبت هذا قروا مظاهرات فنان صالح سناق لي هذا ميجرا صالح سناق لي هذا عايز محل وها يستها قروا يا قبيلة واسو كيمد قارسي يهبلاي واسو كيمد وقروا يا قبيلة ما حيكون كل دويهين maxay ku kala duwan yihiin waan dhahno midna waxa degan masharteen midna isaaq inta buu kala duwan soo marka inta sal waayta ay isaaq iyo masharteen waa isku mid ilaahay baa is baday ma kala tagayaan waa wiil iyo walaalkii waa waxaan ku ilaahaayto waa bishima iyo afba isku yihiin iyo ilka isku yihiin ayaga is asturaya iyaga is daboolaya haday maanta isku yar kacsan yihiin bari baa wax walba hagaagaya war wax walba waa inagu wuxuu waa inagi weey wuxuu waa inagi way aad baan balaayadan inagu dhex shaqaysanaysa shaydaanka iska naara Soomaaliya shaydaanka iska naara heesahana hal la dhigo dhiga heesaha waana iska dhigis la sameeyo oo qoladan koonfurta ee hadda aad u qayliyaysa luqadaha badan ku heesaysa waa in heeska dhigis lagu sameeyo Hargeysa iyadana waxaan leenahay heeska dhigis sameeyo mid dambe lagu soo qaadin Ilaahay ka yaabe koonfurti waa cadhooday awr kaligood baa cadhaysnaa awr rabaqooyiga cadhaysnaa ha hadda isla cadhoodeen dhibka ya maslaxa ya mar dhibka jira wuxuu waa annagu maslaxanadii annagu maxaan qabanaynaa وين نروح أردنا لو أنت رسلا عينه وين جماعة ما صدق أنت زي جماعة المصطفى بان لها سو كارجاد عمامة صغار عمامة يمري يسوق قاتن له جرات كل مية يمدحون المصطفى لو أزدي يعني سوالف قصة رئيس سوما منها رجيسة حتى منها حوار حتى هلا اسمه ركضاي ما دي هلا كله فريش هيس كديسنا وين السماء ساعة وحكي بالله وين جماعة ما صدق أنت زي جعل هاي داود يالنا كسر جبينه كم سنة دين لسعود كين